على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد سيد الخلق أجمعين. أما بعد إن شاء الله تعالى سؤال شكوات بين كسر عندنا لا سؤال دور ملها تبينين إن كسر كيما كولا سؤال شني سائلكم وحوليه وسؤال شكوات صلاة جمع جماعة هدي أي دافتو جمع كوات دافو جمع اللبات هدي أن صاح ليلو وجمعي هراء دافن جمع اللبات صاح ليلو فضلي جماعة مهلية أو جمع اللبات مكوه هلية جمع اللبات سه هدي أن إسكده يكلي متكون كره أنت جمع اللبات إسكده متكون كره كلي ولا بس ولا إسسارا مركب من واحد شيء جمع اللبادي ما جمع فضل اللي جه هلية بقى من الجمع اللبات من لقيته كره أو كلي من لو تكون كره سؤال شو صار تاعي فليتفضل مشكورا وأجرا يا شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حوي قفك بمعنى هدو جمع هردافو فضيلة دي هدي كاسي كتكتي جمع دب فضيلة دي جمعها ما هي راضا ما هبطنا ذي وهريا لكن وحلقة يابا حق عددك inay ku kala badnaadaan oo fadiiladu ay ku kala darajo sareyso qofku laakiin keligii inuu tukado waxa uga ajiib badan ugana fadli badan xitaa hadduu shakhsi helayo shakhsiga inuu la tukado waayo waxa jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam shakhsi waxa jiray jamca daba dhacay oo yimid jamci oo bimacna laga baxay salaadii marka nabigu asxaabtii wuxuu yiri wariyaa ku sadaqaysta ninkan oo la tukada buur hadanaysa kaliya hadii uu ruuxu tukanayo inay ka ajri badan tahay shakhsi kaliya oo bal jamac kala joojiye la tukada inay uga fiican tahay wana ajri badan tahay way laakiin salaada gudideedu ajriga hawaaye de kaliya jamci oo halkan bimacna tukanaya uu iska tukan kara laakiin fadiiladii jamaacada waa ka maasha uu ku waayay way laakiin salaadiisu وإسكان صحيح والله أعلم. سؤال شلبات سائلكم حولي هاي صلاة التراويح ذا أفرق عضو إسراعين كرا سيد الظهر كأوكله يعني أتحياد الحي. بسم الله حوي شيء الصناعة وحيضوا بمعنى wanaagsan ay ku soo aroortay inagu mutabiciin baynu nahay muqtariciin manihin salaada bi macna sunnihi khaasatan amma tarawihata amma martay tukalabaate waxay leelka ku soo aroortay matna laba waa sida fiican weeyaan laakiin waxaad kali kartaa inaad ama 8 ragcadood dan isu raaciso ama 10 dan isu raaciso وما هلا تحيات سميصة أما لما تحيات كوا أوضم بيا بمعنى رجعها أوضم بيا ويفرن تايويان يقف صلاة بمعنى سنة أنت اسمه حيرين كرتين بيش ما طالويان وحونا أكسن لكن كل ضي صلاة ليلة تهاي إن الله بالله بقوضه صافي عن سؤال ورتوي والله أعلم. سؤال صديحات سائلكم حولي هاي waxaan joogaa Mareykanka waxaan rabaa zakatul fidriga inaan bixiyo marka dadka aan la joogay kuma baxayso sakadu sida la og yahay zakadii hadii aan ku bixinayo wadanka Itoobiya oo kale wadankayga hadii aan ku bixinayo quudkeen ku bixinaya ama quutul ghalibka Mareykanka mise quutul ghalibka halka ay joogaan dadka aan siinayo qiimaha بس رأساً ده سؤال شو قيمها هدي أنا العكس صادره عنتدا هالك قيمها أي كتاجن تايبان صادريا مثل هالك أو إثيوبيا ولا جو بحنا يو قيمها أي كتاجن تايبان صادريا. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قفوا كل كميش وجوه الزكاة فدرك وقرأي
haddii meeshaasi la waayo wax la siiyo oo u quma sharcigu wuxuu banaynayaa in la naqliyo oo aqrabul beled ahaanka ugu dhow in loo raro ee laga helayo asnaaftii zikada laga siinayo way waxaana laga fiirinayaa goobta uu joogo hadday bimacnaa saaci inta kolka la qiimeeyo ama 2 kiilo ha noqdo ama ha ka yaraado ama ha ka bateen saaci inta uu ka joogay raashinka uu cunayay aqlabka waa meesha uu joogo kaas la qiimeynaya way kaas kolka bimacnaa ila meeshan waxa laga qaaday laga rarayaa waa zakatu fidrigiisi way zakatu fidrigiisuna muxuu ka waajibi beledka uu joogo raashinka uu qaalibka weeyaan kolka inta qiimaha uu kolba joogo qiimaha bimacnaa maalinka uu ka joogo Mareykanka intaas uu ku qiimeynaya saaca haduu 2 kiilo yahay haday kiilo iyo bimacnaa badh noqon sidee barkood kiilo iyo thuluth ay noqon sidee barkood qabaan haday 2 kiilo iyo thuluth noqonaya sidee culimada barkood qabaan saaca waa mutafaqiyada oo rasuulka ku dhawaaqay inuu yahay saaca min tamrin wa saaca min shaciirin wa saaca min aruzin wa saacaasi waa kiisa mutafaqa way laakiin maxay ku kala tageen kiilaha waxay barkood leeyihiin waa 2 kiilo weeyaan bar waxay leeyihiin waa kiilo iyo thuluth imaam xaniifa oo kale wuxuu qabaa waa 2 kiilo iyo kiilo 3 meelood loo dhigay meeshii weeyaan adu midka tiraahidba Mareykanka aad joogto inta uu ka marayo raashinkaas aad bimacnaa qiimahaas kolka beledka ugu dhow yaa loo rarayaa weeyaan saasa kolka lagu bixinayaa way hadduu halka ka joogay kiiluhu $10 $10 baa la qiimeyn intay ka goysay beledkan aad u rarayso qiimaha kaas lagu bixinayaa way wallahu a'lam su'aasha afraad saa'ilku wuxuu leeyahay waxaan nahay dad walaalo ah oo abahood dhintay dhaxalkii aabahayo badh kamid ah ayaa qaatay walaalahayo xogkiisu muxuu noqonayaa xadiintu ka qabtay inay badh u qaataan bismillah dhaxalku waxa weeyaan waa shay mashruuc ah qof walbana ama ha labaad ama ha dhadigaado ama ha yaraado ama ha badnaado ruuxan ay dhaxlayaan kolka ay naftu ka baxdo yey waxan yeelanayaan xuquuqiya isku yeelanayaan way marka dambe shariicada bimacaan walba wixii alla siiyay yaa meel u dhigaysa way kolka dhaxal waxa la yiraahdaa kolka shariicada inta loo soo dhigo qof walba xaqiisi la siiyo kii nislaha kii thuluth laha kii rubuc laha kii sudus laha kii isaaca sabaha dul bixirkiisa lagu qaaday way laakiin xoolaha gacanta gaadha hadii loo kala qaato dhaxal lama yiraahdo kaasiisa weeyaan waana sida loo kala badsado de dulmi buu noqonayaa kii hadii mid laga badsado xuquuqdiisi uu badh waayo de dad isdulmiyay uu weeyaan laakiin bimacnaa sharcigu waxa weey markay ninkan aad dhaxlaysaa ilaahay nafta uu ka qaado xoolaha noocu dooni baada wixii uu mulkisanaa waritada ku soo wareegaysaa way markay waritada ku soo wareegto kolkii laga bixiyo xaqu tajiizga qofkan inta laga aasayo kafankiisa meeydigiisa janaazada wuxuu u baahnaa kolka inta laga jaro ee wixii bimacnaa deynuhu lahaana laga jaro wixii uu dardaarmay haday fasaxaan laga jaro inta kale waxa weeyaan warisadan ay ka dhaxaysaa way ee warisadu nin walbana waxbu ku dhaxlayaa qayb waliba qori bay soo doonan doontaa aan la xijaabin qorigiisi kolka inuu ka yareystayna ka badsadayba dulmi bay noqonaysaa hadii iyagu qaybsan nin waliba gacanta gaadhay uu la gaadho ee waxa laga yaabaa inay isdulmiyaan laakiin waa in sharciga loo bandhigo oo qof walba wuxuu lahaa kolka la siiyo wallahu a'lam su'aasha afraad saa'ilku wuxuu leeyahay hadii ilmo kay ah oo aan qaan gaarin aan ku kari waayo quraanka inuu barto maxaa dambi ah oo aan leeyahay ma dambi baan ku leeyahay bismillah de mas'uuliyad waxa sheegan sabiga uu leeyahay quraankan ku kari waay waana sabi بعد مداير إنا إسمارة لبضع سيئنا إسقبنين الدولة إنكو هني وين ودم وقت القرآن كمان كوكر الله هو معنه لكن المير هو ولي لا بمع تحت هي كمان بحين مناقان قالين هو السبي
quraankii baan ku kari laahay waxaad moodaa inayna maartay haboonayn qofka fahmada ku adagay wuu quraanka yar kari laayahay waa macquul laakiin ilmaha maxaa la rabaa mar alla markuu 7 jir gaadho in sharaa'icda diinta oo dhan la baro aduu xilka saaran yahay way marka uu 7 jir gaadhana waa in bimacna la baro waxa la wixii shuruucda ahayd oo dhan weligiis waa inuu baro weeyaan haday diinta haday salaad tahay waa in waliba salaada lagu garaaco 7 jirka beedaan 15 jirka suu uga nabad galo hadii shariicadu bimacna uu ka tago wixii ay ku xukumi lahayd si uga badbaado weey kolka ilmaha yareed leedahay dirba waan kari waay adiga xilkaaga yaa kolkii hore sii gaabnaa weey laakiin waa mas'uuliyadii aad adigu kolka hore qaadato kuna bimacna kalifto inuu wax barto laakiin hadaa tira waan kari laahay de ilmaha yar kolkii horeba isagu aqli isku celin maayo waa inaad adigu mas'uul ka noqoto wixii xun aad ku diido wixii wanaagsan aad farto laakiin waan kari waayay inaan dambi kaaga dhacayn baan malan wallahu a'lam su'aasha lixaad sa'ilku wuxuu leeyahay ilma uu dhalay ilmahaygu oo uu biilka u soo diro aabihi anigu zakaatul fadliga ma ka bixin karaa bismillah xusheegaya de sida mafhuumka aan u fahanay in ilmahan uu u yahay aabihi nool yahay waa sida hadaan u dareena u fahanabad moodaa isagiina uu meesha joogo mar hadii aabihi joogo isaga bimacna aabihiina una waxba la ayne uu biilba u soo dirayo isaga ma soo gaadhayso way waxa lagu yeelanayaa aabaha zakatu fidriga lagu yeelan masaariftana lagu yeelanaya way laakiin haduuna aabu waxba haynin isagii ilmaha yaraa awoogu u ahana meesha joogo markaas ay duruuftiisa sharcigu kugu soo xambaari haday nafaqo tahay zakatu fidri tahay laakiin mar haduu aabihi joogo aabihi bay bimacna saaran tahay masaariftiisa iyo zakatu fidrigiisuba aabihi bay saaran tahay weeyaan meesha waxa moodaa aabihi mar hadirayo zakatu fidrina inuu kari waayeen saa ka bixinaya wallahu a'lam su'aasha toddobaad zakaatul fidrigaas ayana xiriir la leedahay qadarka zakaatul fidrigu ma laba galaanba mise waxba dheer haduu wax dheer yahay waa intee bismillah wixii horta waa laba samartay qofka waxa laga rabaa waa sac waa xiriir sidii wax loo oranay way marka xaqiiqa ahaan aad dhowrto kiilo waa qayb badan yahay kol kiila gaab baydadeen kiila maxay baydadeen laakiin kiilaan caadi ee dumarkeenu eega haruudhadiya lagu miiso markaan bimacna saaci maka aan ka soo qaadnay ku qiyaasnay labadii kiila jagaaga dheeraaday way labada kiile yaa inay sida maarata qadar casirila dhan yaa dheeraaday way kolka labada kiile ayay sida bimacna muttafaq yihiin way kiilaha gaaban kuma naan cabirin laakiin kiilaha dheer baan ku cabiray kiilaha miisaankana kuma naan cabirin inta uu ka qabanayo ileen kiilihi waxna waa miisaan waxna waa miis weeyaan kamiiska kolka labadan kiila dheeraad jagaaga dheeraanaya way laakiin waxa isagu bimacna uu qabaa imaam maalik waa kiile iyo thuluth buleeya de kiilahaasi kolka ku yahay magiciin ba qadxaan ba meesha ku yaale waa galaas iyo galaas saddex meel loo dhigay meeshii buleeyahay way shaafici iyo xanafi waxay qabaan qadxaan bay qabaan way oo sida kan eega aan sheegayno wuxuu qabaa inuu saacid 2 kiilo yahay way aba xanifa wuxuu leeyahay waa 2 kiilo iyo kiilo saddex meel loo dhigay meeshii oo thuluth buleeyahay way adu midkaad raacdaba suuqa saaci eega uu yaala cabirka hada doonto waad ka daalaysaa weeyaan adigu ama ka miisaanka saar ama kala saar kaasaan saaray labada kiilo dheeray noqonaysaa wallahu a'lam su'aasha sideedaad sa'ilku wuxuu leeyahay qofku hadii uu ku daba xidho imaam kana gaarsiin waayo faatixada akhrinteedii muxuu sameeyay hadii faatixadii uu ka gaarsiin waayo oo imaamku ka hor rukuucna uu ku soo gaaray marka istaag uu ku soo gaaray bismillah qofku kolku imaamka ku xidho laba xaalad mid buu noqon inuu yahay nin masbuuqa
oo salaada laga horeeyay iyo inuu yahay qof غير مسبوق oo salaada mar la xidhay hadduu masbuuq yahay oo salaada bimacnaa qaybi ay hor dhacday markuu ku xidhayna isagoo faatixadii aan dhamaystirin imaamku rukuuco waxa la dhowrayaa kolkaad xidhatay mafaatixada baad bilowday mise adkaar kale oo wajhatudii iyo iftitaaxii kalaad bilowday haddaad faatixada bilowday marka halkaad joogto baad joojisan isaga inta baaqiga ka xambaari waad rukuucaysaa weey waa markuu kaala horeeyo salaada imaamku aadan waxaad kaarna ku leexanine kolkaad xidhatay faatixada hore ka bilowday weey haddii laakiin adkaarta aad ku leexato adiga oo salaada laga horeeyay adiga faatixadii dhamayna uu rukuuco waxaad noqonaysaa adkaarta intaad ka aqriday qadarkeedii faatixada ka wad baa lagu leeyahay weey kolkaad inta kolka gaarsiiso imaamkaagu hadduu kaala hormaro laba rugn maarta saddex rugni oo dawiila ama waad ku waafaqi ama waad ka goosanaysaa weey laakiin haddaad kolka u horeysaba aad mar la xidhatay markaad mar la xidhatayna aad faatixadii ka gaarsiin weyday ama waswaas kugu dhacay ama bimacna carab culays isaguna waa carab fududaaday iska daba socaa lagu oranayaa weey ilaa saddex rukni oo dawiilayna cudurdaar baad haysataa waa daba soconaysaa weey markuu rukuucda kooba laga oran i'tidaalku waa rukni qasiira la tirin maayo hadana sujuuda bimacna uulada ya laba la orani inta adiguna faatixadii baad ku jirtaa waxa ku hayaana waa carab culays ama nisaan ku dhac adu wax martay waxaad noqotay cudurdaar baad haysataa juluuska beeniseenki waa qasiir loo tirin maayo sujuuda kolku bimacna ka soo tooso adigina faatixadii aad ku jirto laba xaala mid baad samayn inaad koba la kobtu bimacna sujuuda wixii ka dambeeyay haduu fadhiyay haduu taagni yahay ku waafaqdo oo ragcadaada aad halka ku joojisato kolku salaamo naqsado aad ragcad la timaado inaad aayar goosato aad salaadaada hore u wadato labada wadabo ay ku banaan yihiin wallahu a'lam su'aasha sideedaad saailku wuxuu leeyahay waa gabadh nin baan kala tagnay inteen ku ciido tirsadaa bismillah ciidadu waxa weeyaan waa shay mashruuc ah rabbina faray qofkan dumara waxa maartay u kala qaybsamaysaa marka gabadhan ay ninka kala tagaan inay uur leedahay iyo inay xaa'ila tahay bay noqoni haday gabadhu uur leedahay uurkaasina ninkan ay kala tageen loo tiirinayo ama ha ku fogaado ama ha u dhawaado waa uurka oo dajisan weeyaan uurka dajisan weey habeenku fura habeenku ku xiga haday dhasho ciideeda halkaas ay ku haraysaa weey caloosha koladii uurka ku jira ninka loo nisbeynaya furay ama uurku maartay dhagidiisu soo degdegto ama hadib dhacdo sinantayna ku jirtay waxa weeyaan uurka dajintiisa laakiin haday xaa'ila tahay nabi macna uur caloosha waxba ku wadin waxa la dhowrayaa inay leedahay dumarka caadada bimacna inay tahay iyo inayna lahayn bay noqonaysaa weey gabadhan la furay haday tahay dumarka caadada leh waa in waqtiga la furaa la dhowri ma iyadoo caadala buu gabadha furay ma iyadoo daahira buu furay labadaas ay mid noqonaysaa weey hadduu gabadha iyadoo daahira furay duhurka mooye laba duhur oo kale waa inay marto weey oo duhurka ay ku jirto waa loo tirinayaa quraan weey waa laba quriba loo maaratay quriba loo tirinayaa markay haddana dhiiga marto ama haw dhiigaasi ha u dhawaado oo yoomiye weli ha noqdo ama akthar ha noqdo 15 ama inta ka dhaxaysa ha noqdee dhiiga kale ka gudubtay duhuriga kala gasho waxa haddana bimacna duhuri baa loo tirinayaa weey duhuriga kale ka gudubtay haddana dhiig gasho dhiigaasi bimacna ay ka maydhatay duhuri gasho duhuriga saddexaad kala la kolkay saa uga baxay dhiiga gasho halkaas ciideedu ku gooyaa weey waa laba daahir inay marto duhurigi lagu furay mooyee laba dambo inay marto weey kolka waa talaata aqraa weey waa kolkay gabadh dhiig la tahay hadii la furay iyadoo oo dhiig leh oo caadadii bimacna leh ama nifaaskii leh
dhiigan inta uu meesha yaalo ee gabadha uu ku xukunkaas ku sugan yahay ciddadu uma tirsana weeye waata ilaahay quraanka ku farayo yaa ayuha nabi idha talaqtum an-nisaa fadalliquhunna li'iddatina walid hablaha mar ay ciddada gudagalayaan fura ma banaana kolka ciddada in lagu dheereeyo in alla intan ay dhiiga bimacna aw hayo ama ha yaraata ma ha badnaatee ciddadii uma tirsana maalinkay ka maydhato unba ciddadii kow laga odhan saddex duhur waa inay marto kolka saddex duhur waa inay marto way gabadha kolka mesela kolkay suuraynayaan ugu fudud gabadha waa in la furo maarta hadii duhri lagu furo waxa weeye inta ugu suura yar ee looranayo cidda kaga goday waa bil iyo laba habeen iyo laba laxda weeyaan waa laxdadii kolku sida u furayba iyadoo daahira waa inuu dhiig ka yimaado wuxuu haynayaa yoomiye waleyle hadda waxaad galaysaa haddana duhri 15 cisho iyo duhrigeedu soconaya yoomiye waleyle haddana guda galaysaa haddana bimacnaa maartay 15 cisho laxdada dambe dhiiga guda gasho waxa weeye halkaas ay bimacnaa ku maartay ay kaga daahirmaysaa weeye waa 32 maalmood iyo laba laxdo waa laxdadii uu ku furay iyo laxdadan dambe dhiiga ay gudagashay la xaqiiqsaday intaas lagu suurayn karaa gabadhu kolkay dhiig leedahay caadada maartay inta ugu yar ciddabu haday gabadhu iyada dhiig la furo waxa la suurayn karaa 740 maalmood ka yar lagama suurayn kara buud 740 maalmood baa ugu yar weey waa gabadhi dhiig lahayd taasiyad weey naagtu hadayna golmadan tahay oo ina maartay uur waxba ku sidin dhiigna ayna lahayn waxay noqonaysaa oo kale waa tii dhiig gabadha haftay aysada ahayd waa sagiiradii waa mutaxayradii qaybo badan baa soo gala kuwaasi waxay ku ciddo tirsadaan waa 3 ashhur weeye 3 bilood bay ku ciddo tirsadaan weeye 3 bilood bay ku ciddo tirsadaan weeye laakiin dadkeenu wuxuu u badan yahay gabadhiyo dhiig laba koonaa 3 bilood wali ma gaarin war dhiigoon baa la dhawri ama ha u dhawaada ama ha u yaraade bil iyada loo dhawri maayo ee gabadha sabiga ee yar iyo islaanta bimacnaa dhiiga maxadiisiiba dhaaftay kuwaas 3 bilood loo dhawray mutaxayirada iyo wallahu a'lam su'aasha ugu dambaysa waa su'aashii tobnaad saa'ilku wuxuu leeyahay qof hadii uu cuqdad ku hayo adna aadan ogeyn sababta uu kugu hayo maxaa kula gudboon bismillah qofku qalbigiisa ma ogid maxaad ugu maraysay inuu cuqdad ku hayo waxa weeyaan qofka ninkii nabiga kaleey salaatu wasalaam dagaalkii kolkuu galay uu nabar adag ku dhuftay iyo baxsaday markuu arkay inuu baxayn buu maartay tawxiidka qabsaday marka waa kii saxaabigii nabigu ku oranaya ashaqata qalbahu buri ee waxaan aad leedahay anu ma ogi maxaad ku ogaatay inuu cuqdad ku hayo in kale horta waa inaad ogaato cadayso sababta adiguna aadan ogeyn haddana aad leedahay cuqdad buu ii hayaa qofku waa in ama uu idin dhaxmaro dhib maartay dhibaato duuyo ama tu diineed ka bacdi kolkaas maartay dhib halka uu ka bilaabmaya way laakiin haddaad adigu dareentayba waa inaad kol walba adigu mujaamala maartay ihsaanad kula dhaqanta guud hadday salaam tahay hadday cafi tahay hadday soo dhaweyn tahay waa inaad kula dhaqanta way laakiin hebel cuqdad baan u malayno waan annaka leexan maya way dayr xitaa labadiina dhigin dhaxmaray waa kii ka salaamta bilaaba kaasa midkood labadan isaamaartay ay calxumadu ka dhaxayso yaa ka fadhi badan ka kale ibtidaa ka bilaabay kolka adigu hadaadan bimacna qalbigiisa ogeyn ha ku xambaarin malaha cuqdad baa kan ku jirta dhannigu ma fiicna weeyaan yaa wa akdab alhadith way inaad malayso uun dhannu bil mu'mini khayran baa leeyahay qofkan walaalka dhibaato kale ba inuu ka fikiri baa laga yaabaa ee laakiin adigu uu cudur inta galiso ma adigu ku cadhoonaha odhan ama ku calool xun yahay wallahu a'lam intaas aynu ku safmeerna insha Allah ta'ala su'aalaha wala soo gudbisan karaa bari hadii ay soo noqoto iyana saas oo kale inoo socon doonta insha Allah ta'ala su'aalahana inna wala haya waan ku soo biirsan doontaan insha Allah ta'ala su'aalaha ugu muhiimsan ee idinka dhaxgo hay insha Allah saasuna